بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحوينها الجمهورية الفدرالية الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو دمان مرتي شرفتا كسو قيب قشي حفلدان يا دمان الدولة ددوينها الصوماليات يا مدحدا الصومالية دمانتود وحن لها مركل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كجدال سيدا هل كان لوجا وذا دواجي ما أنت مالين آد وين أو تاريخ الصومالية ملكه أو وين كجلي سوايه دت كيجو الرياضن أيا كهذلي وحن ربعنا آد وجوهم بليايو مدحوينا محمد عبد الله فرماجو وعن ولبا أود عينه إلهي إنه حلك الله جرب قاله عن سيدا كله عن آد كدر يا عد كيجا Soomaalidu dimuqraadiyiintii ugu horeeyay Afrika in ay ka mid yihiin oo ay yihiin dad ilaa bilowgiiba ilaa ay duruufuhu marka qaar kood u diidaan mooyaane markay fursad helaan in ay dhaqan ahaan dad dimuqraadi ah oo jecel in talada dalka iyo dadku mar walba ay ogolaanshiyaha iyo rabitaanka shacbiga codkooda la aqbala in ay yihiin aad ba dad badan oo madaxdii halkan ka hadashay ay arinta aniga iigu bogaadisay laakiin waxaan rabaa ما هي أنا جنك صاب اللعبة ولكن شيخ شريف أيها إجوه الرئي أو سيدان وكلا لبكون إيا لبيه طبعا كي سيد الجن أو معنوين وكجر أو شرف كجر تحيل كي إجوه رجيي أنا جونا ما أنت سيد وكلا أيان آد وفرح سنة هاي إن ولكن محمد عبد الله فرماجو وجوده أو أن سيدا سوكلا حيل كي إجوه رجيو سلام كجدال إيو محوها هاي أنت وحن ربع ما أنت maalintaas weyn oo taariikhda dadka Soomaaliyeed dhamaantood waa wax ay ku faani karaan Soomaalidu meel kastoo ay joogto maanta waa maalin ay ku faanayso oo dhammaan dadka Soomaaliyeedna taariikhdooda sida halkan ba looga wada qiray loogana sheegay waxaan leeyahay taariikhdaas iyo dhaqanka sidaas Soomaaliya ha sii socdo hana waaran leeyahay dadka Soomaaliyeed codkooda iyo taladooda mar walba waa midka ugu mudan in la ixtiraamo oo la qadariyo hadii alla yiraahdo sidaas ayayna noqon doontaa Soomaaliya maanta meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay dhammaan hambali dadka Soomaaliyeed raali ahaanshaha alla ka sokow waxa maanta meeshan ka dhacayahay waa wax ay dadka Soomaaliyeed dhamaantood ay ku lahaayeen qayb ka qaateen u soo dadaaleen raali ka noqdeen waxa maanta halkan ka dhacay waa wada jir hawl loo soo wada qabtay sidoo kale maanta waxaan idinkula dardaarmayaa in si buuxda oo gabasho iyo kala har aan lahayn loo garab istaago madaxweynaha cusub in uu xilkiisa ku guuleysto iyo xukuumadda cusub ee dalka dhawaan loo dhisi doono hadii alla yiraahdo walaalayaal waaya aragnimadu waxayna tusee Soomaaliyada cusub ee aan hiigsanayno ee aan maanta ku taaganahay wadadii aan hiigsigaas quruxda badan hiigsanayna aan ku gaari lahayn meel uga ma banaana cambaarayn mucaaradad aflagaado madaxda iyo hay'adaha dawladda la afdee taas bedelkeedii dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay madaxda hal la taageero hal la waaniyo hana loo duceeyo in Ilaahay xilka uu la garab galo walaalayaal Soomaaliya qof waa ka weyn tahay qof aad nacab tahay ama aad dibsanaysa awgeed Soomaaliya sumcadeeda iyo wajigeeda waxa ugu dhimin dawlad dhisidda Soomaaliya maanta waxay ugu baahi badan tahay waa muuqaal qurxoon in loo muujiyo dalka Soomaaliya laga muujiyo muuqaal qurxoon iyo in laga shaqeeyo xasilooni iyo deganaansho siyaasadeed dalka inay ka jirto la yareeyo ama la joojiyo isqabqabsiga iyo iska hor imaadka Soomaaliya waxba kuma soo kordhinayso mucaaradada iyo isqabqabsiga taas markaan leeyahay waxa ii weylisa marne dadka Soomaaliyeed kula talin maayo inay wax qaloocan iyo wax qaldan raali ka noqdaan laakiin wixii naga qaldan hay'adaha dawladnimada dhaxdooda waa inaan ku saxnaa ee banaankooda inaan ku raadina saxid ma ahan taariikhdii way aragnimada Soomaaliya wadadii aan soo marnay waxayna tusay isku day kasta iyo wax kasta oo xendaabka dawladnimada banaankiisa lagu sameeyahay in aanay hirgelaynin haddii marka hore ay u muuqdaan xataa inay hirgelayaan ma waarayaan
laakiin wax kasta oo xayndaabka dawladnimada dhexdeeda lagu sameeyaa mar walba way waarayaan waana dhaqan galayaan dib u dhiska dawladnimada Soomaaliya iyo dib u soo kabashada dalka guud ahaan waa xaqiiqo dhab ah oo maanta aan la hor istaagi karin horeyna u socotay maanta waxba nama tarayso hebelaa iileh iyo koox hebelaa iileh iyo dal hebelaa iilaha dhibaatadan waxba nama tarayso wax kasta oo dalkan ka dhaca wanaagiisa iyo xumaantiisaba dadka Soomaaliyeed ayaa iska leh waa inaan wanaagiisa mar walba inaan lahaana aan ka shaqeyna hadii aan leeyahay waxa ka dhacaya dalkeena waa dadkeena waxa ay sameeyeen wixii hore u soo dhacayna mas'uuliyadeeda waa inaan qaadnaa waxa wanaaga ee maanta socdana oo soo bilowday mar horene waa inaan ku naaloonaa oo aan ku faanaa dhammaanteen sidaas daradeed caalamka annagoo kaashanayno annaguna iskaashanayno Soomaaliya waa inay isku tashataa oo ay hore u socotaa tajribada waxayna tusaysaa wadadii aan soo marnay burburkii dawladnimada ka sokow caalamku dawlad nooma dhisi karo waa la soo tijaabiyay waa suurto gali weyday dawlad dhisideena iyo dawlad wanaagsan iyo dawlad xoogan iyo dalkeena oo baraaro gaaro waxa mas'uuliyadiisa dusha ay ka saaran tahay dadka Soomaaliyeed iyo dawladooda waana inaan u wada istaagnaa arintaas annagoo kaashanayna dabcan caalamka oo aan ka mid nahay haddaba anigoo ka faa'iideysanaya munaasabadan weyn ee maanta waxaan u mahad celinayaa dhammaan madaxdii Soomaaliyeed ee ila soo shaqaysay muddadii 4 sano ahayd ee aan xilka dalka hayay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dhammaan madaxdii aan walaalaha iyo saaxiibada ahayn ee Soomaaliya soo garab istaagnaa muddadii dhibaatadu Soomaaliya ay ku jirto dhan waxaanan halkan uga codsanayaa mar kale inay sii garab taagnaadaan Soomaaliya iyo madaxda cusub ee maanta timiday si dalkeenu hadii alla yiraahdo oo hore ugu sii socdo madaxweyne Soomaaliya ugu qabsoomay labo dhamaystirka wixii qabyo ka ah iyo saddex unkida rajo cusub oo lagu dul dhiso wixii noo qabsoomay inta kadib waxaan leeyahay Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha midowdo Soomaaliya dawladnimadeeda ha xoogaysato idinkuna noolaada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh